السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيمات تاما يعني نير رجينيا ولها شرفت بدن ميل كستو أدون كاد كجوجتان muuqaalkan waxaynu ku soo qaadan doonaa enduring bond waa dabarka u dhaxeeya ama waa daryeelka u dhaxeeya hooyada iyo inanka ay dhashay ama hooyada iyo wiilka ay dhashay. daryeelkani waxa uu gabagaboobaa ama waxa uu dhamaadaa dhinaca wiilka marka la joogo qaab dabeeci ah. inkasta oo inaku aynu nahay dad muslimiina oo diinteenu ay nafarayso birri waalideynka iyo xidhiidhka waalidka iyo naxariista waalidku ay nagu tahay mid waajib ah oo qasaba, haddana waxaa jirta marka dhinaca sayniska la eegayo arrin la soo bandhigo oo aynu doonayno muuqaalka insha Allah inaynu ku dhex tilmaamno. arrintani waxa ay tahay dhinac marka laga eego waa nasiib darro, waana runtii arrin aan farxad gelinaynin waalidka hooyooyinka, laakiin in wixii si cilmiyeysan loo fahmo waa lagama maarmaan. waxaa jira jacaylka noocaasa ee la yidhaahdo enduring bond ayaa ka dhaxeeya hooyada iyo wiilka ay dhashay. jacaylkaasi wiilku marka uu gaadho da'da 16 waa uu yaraadaa. jacaylkaas wiilku marka uu ka yar yahay da'da 16 waxa jaangooya hormoon la yiraahdo oxytocin hormone ama love hormone la yiraahdo ayaa jaangooya. yacni wiilasha ama raggu marka ay 16 ka yar yihiin jacaylkaas ay u qabaan waalidka waxa jaangooya hormoonka la yiraahdo oxytocin hormone. laakiin marka ay halkaa dhaafaan waxa ku yimaada hormoon kale oo ku bata oo la yiraahdo testosterone hormone. hormoonkaasi waxa uu la yimaadaa jacayl kale oo aan kii hooyada markaa ahayn oo ninku uu qabanayo haweenka kale ee markaas uu guurka ka damacsan yahay. marka ninkaasi jacaylkiisa iyo farxadiisa waxaa jaangoynaya hormoonka la yiraahdo testosterone hormone. daraasadaha qoyska laga qoray waxa ay si toos ah u muujinayaan in ninka markasta oo hormoonkaasi uu sii awoodeysto inuu jacaylkiisu u sii badnaanayo dhinaca haweenka kale, oo markuu haweenka kale la hadlayo farxad uu ka helayo oo uu si fiican ula sheekaysanayo oo uu lacag siinayo oo uu guursanayo. arrintan baa waxay tahay arrin runtii nasiib darro ah oo waxa ninka qaab dabeeci ah uga sii yaraanaya hormoonkii kale ee markaas jacaylka hooyada badinayay oo hormoonkan baa ka xoog badanaya ama ka awood badanaya. arrintan baad moodaa bulshadeenu inay ku baraarugsanaayeen xilliyadii hore oo waxa ay yidhaahdeen naas la taabtay iyo naas la nuugay waa yama, kadibna waxay yidhaahdeen waa naas la taabtay. ay u jeedaan ninku xaaskiisa ayuu hooyadii ka raaca ama xaaskiisa ayuu hooyadii ka jecel yahay. inkasta oo qolada daraasadda caafimaadka sameeyey ama si scientific u muujiyey in ninka hormoonka testosterone marka dambe jacaylkiisa, rabitaankiisa iyo farxadiisa uu jaangooyo, taasina ay bays u noqonayso in haweenka kale ee shahwadda iyo rabitaanka dhinaca ninimada uu ka rabo waad u jeclaanayo hooyadii iyo xataa dumarka muxrimka u waana jacaylkiisu uu ka yaraanayo. haddana waxaa jira cognition iyo garaad iyo garasho Ilaahay ibn aadanka siiyey, raggana siiyey, oo ninka u sheegaya xaqa ay ku leedahay hooyadu, xuquuqda ay ku leedahay waalidku iyo dadka ehelka iyo dumarka xataa muxrimka uu yahay inuu jeclaado oo iyagana jacaylkii wax isku ahaanshaha iyo kii waalidnimada iyo kii ehelnimada inuu xoojiyo. dhinaca kale gabdhaha ama hablaha ayaa jacaylka hooyagu iyaga uu ku sii bataa oo iyaga markasta jacaylkooda waxa jaangooya
hormoonka la oxytocin hormone ee kii qoyska iyo ehelka iyo waalidka u dhaxeeyay kaas hormoonka jaangooynaya ayaa markasta jacaylkooda gabdhaha jaangooya dhinaca kale hooyooyinku marka ay dhalaan gabdhaha iyo wiilasha xilliyadii hore ee casri jaahiliga way kala jeclaan jireen oo hooyadu marka ay wiilka dhashay aad ugu farxi jirtay oo waa kii ay lahayd markaad dhalataal dhawaaqday dadiyo dhaxanba iga duulay burwaaya iga hor yaacay marka ay gabadhi u dhalatana odhanaysay ohey gabadhay dhibaya dhibkeeda iyo dhagaxidhkeeda dhibaad soo doonadkeeda oo ay hiifayso hadalkeeda aad ka arkaysaba inay markaas ay gabadhii ay wiilka ka jeceshahay hooyadu haddaba muuqaalku marka koowaad waa baraarujin ragga baraarujinayo oo jacaylka hooyada in la labanlaabo hormoonadaasi waxyaabaha jirka iska bedelayana aanu ninku aanay riixin ama aanay ku turturaynin meel kale oo waa tii lahayn hooyadii wiilkeeda ay haween kale ka duufsadeen ama dumar kale ka raacay oo jacaylka dumarka kale la macaanaaday waa tii lahayd barbaar hanaqaad ku leexda duciya habaan qaadan waaya ciriyo heeguu noqdaa hadhaysa dhulaan aqoone anigu ku habaari maayo huq baase ku raadinaysaa hadhowtiyo dee hadhowto hadeertiyo dee hadeerto sariyo hoostii ku raacdaanunbaa hooyadaaya marka hooyadaa cid kuu dhaanta ma jirto ee ku fara adeeg jacaylka hooyada hana ka weynaanin cid kalena ha ka jeclaanin xaaskaagana ha ka jeclaanin ee mudnaanshaha koowaad hooyadaasi intaasaan ku soo ururnaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh